أصحاب سبتي qoomkii daanyarada laga dhigay asxaab sabti waxay ahaayeen koox yahuuda ka tirsan eeban waxa uu gaar yeelay in maalinka sabtida ah laga nasto wixii shaqo ah ayna tahay maalintaas maalin cibaado eebana waxa uu ka xarimay in maalinta sabtida ah ay shaqo aadaan sidaas ayayna reer bani Israa'iil ku joojiyeen shaqadoodii oo tan ugu weyn ay ahayd kalluumaysiga maalinta sabtida ahna xaraan ayay ka ahayd si eeba ugu imtixaamo iimaankooda haddaba kalluunkii ayaa soo tirabatay maalinta sabtida ahayd oo ahayd maalintii laga xarimay in ay kalluumaystaan kalluunkuna waxa uu iska yaalyaal xeebta soo qabasho iyo hawl badanna uma baahneen arintaasna dadka lagu imtixaamay way u dulqaadan waayeen dadkii tuuladana waxay u kala baxeen saddex qaybood koox amarka ee bajabisay koox aan jabin iyo koox ka aamustay garab siinayna kuwii jabisay haddaba kooxdii amarka ee bajabisay waxay la yimaadeen xeelad ah in ay biyaha afkooda ka soo jeexaan kanaala tagay godada ay u diyaariyeen si uu kalluunku ugu dhaco kooxdii adeegsatay farsamadana maalin sabtida ah wax kalluun ah ma taabanayaan mana kalluumaysanayaan ilaa laga gaaro maalinta labaad ee Axadda kadibna si fudud ay kalluunka u soo guranayaan waxayna ku doodi jireen in ay maalinta sabtida ah aysan sameeynin wax kalluumaysi ah habeenada kamid ahna alla waxa uu soo dejiyay ciqaabtoodii waxay seexdeen iyagoo bini aadan ah waxayna subaxii soo kaceen iyagii oo daanyaro noqday